ururka samafalka ee tawfiiq ee ka howlgala gudaha goboladan Awdal iyo Salal ayaa maanta waxa uu saxaafadda u soo bandhigay wiil 15 jir ah oo ku xanuunsanaya isbitaalka weyn ee magaalada Boorama. wiilkan waxa lagu magacaabaa Sahal Cali Xasan, waxayna ururkani sheegeen in xayawaano ay ugu dhasheen jilbaha iyo qaar kamid ah jirkiisa, waxayna walaalaha muslimiinta ah meel walba oo caalamka ka joogaan u weydiiyeen gargaar degdeg ah si wax loogu qabto baahiyaha xoogan ee wiilkan dhanka caafimaadka ka haysta, isla markaana loogu heli lahaa dhakhtar caalami ah oo ka daaweeya xanuunka culus ee wiilkan dhalinyarada soo food saaray. Hinda Catoosh Aare waxa ay kamid tahay ururkani Tawfiiq, waxayna ka hadashay madashan waxaana hadaladeeda kamid ahaa maanta imika haddana waxaan la joognaa walaalkay Sahal Cali Xasan, waa inaan ka hadalkiisin waa inay rooshin 10 jira daraad ayay gabadhi la soo hadashay. waxay ugu tiri maadaama tiin qoladii tabaracad ka shaqeynaysa waxaan arkay tiri inay yar oo jirkiisa uu xawayaan ku dhashay, wax lagu safeeyo iyo wax lagu dhayo wax dhakhtar lagu geeyo midnaba aan loo haynin. marka wallahi taasi markiiba way taabatay, degdeg baan xaafadii u tagnay, waan soo eegnay haddaan ururka Tawfiiq. dabadeed markiiba subaxnimadii waan soo qaadnay dhakhtarka ayaan keenay, dhakhtarka ayuu yaalaa. marka hada wax aanu hayno oo hooyadina inaan karno waa agoon, hooyadii xaafadooda waa dan yar boola yar bay galaan, wax allaali wax loo hayaa ma jirto. dabadeed ilaa shalay ilaa maanta waxaan dhaxay caamidna qolada dhakhtarka oo dawooyinkiisa iyo waxa lagu sameeyo wax xawayaanka laga waxeeyo aan uga raadinayno. marka ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan waxaan ka codsananaa ilmaha yar ee 15 jirka ee xawayaan ku dhashay inay si naxariis leh waxaan uga codsananaa inay soo caawiyaan oo wax dhakhtar lagu geeyo oo lagu safeeyo inay u soo diraan baan uga weydiinanaa dadka. Cabdi Fataax Axmed, Had Wanaag News, magaalada Boorama.